wiil 17 sano jir ah oo karti badan ayaa waxaa martigelinaysa wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga si uu u qayb galo Tignafaasi oo ah munaasabadda ugu weyn hawada iyo tiknoolajiyada dalkaasi. Guuleed Cabdi wuxuu sameeyay moodalada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ama droniska isagoo hiwaayad ah oo aan lahayn awood dhaqaale. Wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Mevlut Cavusoglu ayaa ku arkay Cabdi internetka wuxuuna ku casuumay Gaziantep si uu ugu soo qayb galo munaasabadda. Hadda waxaa laga taageeri doonaa inuu sii wato waxbarashadiisa Turkiga. Cabdi maanta waxaan ku faraxsanahay inaan maanta soo booqdo shirkadda diyaaradaha Selkak Bayraktar oo ay hay'adaha Turkish Technology Team Foundation T3 ay tahay mid ka mid ah qabanqaabiyaasha xafladaha ayaa sheegay in moodalada Cabdi ay yihiin kuwa cajiib ah. Waxaan ku casuunay Tignafaasi waxaan rajaynaynaa inaan ku aragno Baykar soo saaraha diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Turkiga ayuu yiri. Wuxuu sidoo kale booqan doonaa shirkadaha kale ee difaaca iyo duulista hawada sida Tasas iyo Havelsan inta ay munaasabadda socoto. Dabaaldega oo socday 4 maalmood ayaa Khamiistii ka bilowday gobolka Koonfur Bari oo maanta lagu soo gabagabeeyay.